bilaabin aan iskaan baro waxaan ahay mitir iyo 70, sidoo kale miisaankaygu waa 51 kiilo. Waxaana jiray 16 sano markii dhacdadan igu dhacaysay. Waxaan ahay qof ciyaaro badan sida orodka, kubadda cagta, volleyball-ka, kubadda kolayga iyo ciyaarta barafka. Waxaan qabaa cudurka hurdo la'aanta. Qisadanna waxay igu dhacday abbaaro 8 saac habeenimo ee 10kii Agoosto 2019. Habeenkaasi waxaan la joogay saaxiibaday qaali gurigeeda, maxaa yeelay waxay kasoo noqotay safar dalxiis ah, waxayna hadiyad ahaan iigu keentay jaakad cusub iyo macmacaan. Waxaan la joogay iyada ku dhawaad saacad camal, waxaana rabay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan gurigeyga kusoo laabto, sababtoo ah dhab ahaantii xaafadeyda waxay ahayd meel cabsi badan xilliga habeenkii. Waxaa ka jiray daroogo, ganacsiga, kufsiga, dilalka, micnaha iska fahmi kartaa. Waxay ahayd meel saaid u cabsi badan. Sidaa darteed waan soo macsalaameeyay saaxiibaday, waxaana bilaabay inaan kusoo socdo waddada saaxiibaday. Waxaan filaa inay meeshaas xaflad ka socotay, maxaa yeelay gadaasheeda waddada dhammaadkeed meel dhowr tilaabo iga jirta meesha istaagsanay waxaa socday koox dhalinyaro ah oo soo goynaysa waddada. Labadooda waxay ahaayeen rag dhaadheer, waxaan ku qiyaasayaa inta u dhexeysa 1.80 ilaa 1.90. waxay la muuqdeen rag iska caadi ah oo dhibaato wadanin, laakiin xoogaa kadib way wada istaageen iyaga oo isoo eegaya. Waxaan dareemay welwel, waana iskaga dhaqaaqay. Markaas waxaan maqlay mid ka mid ah oo dhahaya, "Alla waa gabar." Markaan soo jeestay waxayna bilaabeen inay igu soo dhaqaaqaan dhinacayga. Mid ka mid ah nimankii wuxuu aaday waddada dhinaceeda kale ee mugdiga ah. Taxaddarkaasi waxaan ogaay inay wax un qaldan yihiin, waxaana bilaabay inaan xawaareyga kor u qaado. Sidaasoo tahay wayba igu soo dhawaadeen, mana ogeyn midkii labaad meeshuu ka baxay. Xoogaa kadib gadaasheedaan soo fiiriyay, midkii koowaad weli wuu isoo daba socday. Waxaan u malaynaa inay qorsheynayeen in midka labaad uu iga soo horbaxo ayna i qabtaan. Markay 3 tilaabo ii jireen waxaan bilaabay inaan ordo oo meesha ka baxsado. Markaasaan maqlay way baxsatay qabo. Waxaan kasoo leexday waddo ku taala dhankayga midig, walina waa maqli karay orodkooda gadaashayda. Isla markaasi waan ogaa inay nimankani iga daba haraynin, waxaana go'aansaday in aan ku dhunto guri meesha ku yiilay baarkinkiisa. Meesha waxay ahayd meel mugdi ah, waxaana isku qariyay mid ka mid ah gaariyaashii meesha yiilay. Ma aqaano intaan gaariga hoostiisa ku jiray, waxay noqon kartaa daqiiqad, laakiin waxay la mid ahayd daqiiqadii ugu dheerayd noloshayda. Waxaa meeshii soo maray 2 nin oo ordaya, mana aysan fiirinin gawaarida hoostooda. Markii aan dareemay in ay meeshii ka tageen, waxaan ka soo baxay waddada kale oo guriga aadayso, maxaa yeelay waxaan ka baqayay haddii aan waddada weyn qaado inay mar kale iga soo horbaxaan. Waan ogahay waxaan dhihi rabo inay doqonnimo tahay, laakiin saldhigga booliiska ma aanan aadin, maxaa yeelay dacwad kuma aanan oogi karin, sababtoo ah wejiyadooda si fiican uma aanan arkin. Haddii ay jirto cashir aan ka bartay dhacdadaas, muhiim maahan qofka aragtida how waxaa u baahan tahay in aad saaid u taxaddarto. Waas dhihi kartaa magaaladan ku noolahay waa amni, laakiin dhab ahaantii arrinku sidaas ma aha. Mana jiro qof kaa difaacaya dadka xumaanta kula rabo. Fadlan mar walba iyo meel walba hareerahaaga iska eeg, maxaa yeelay safety-gaaga ayaa ku jiro. Ka waran haddii aan anigaas muusik iska dhegeysan lahay, maanan wax hareerahayga ka socda la socon lahayn. Waa necbaa inaan ku fikiro wixii ku dhici lahaa habeenkaas. Waxaan rajeynayaa inaysan qof kale ku dhicin waxa igu dhacay waqtigaas. Waxaan noqday sida ugaadh ay bahaladu eryanayaan. Sidoo kale nimankii habeenkaas soo daba galayna waxaan rajeynayaa inaanan mar kale kulmin.